kula waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah qarax xoogan oo hadda ka dhacay mid kamid ah xeryaha lagu tababaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku yaala magaalada Muqdisho khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa dhinaca kalena Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka jawaabtay hadallo eedeyma oo loo soo jeedinayay oo ahaa in ururka argagixisada ee shabaab ay taageeraan dhaqaalana ay ku bixiyaan waxaan idin soo gudbin doonaa dhinaca kaleeto cadho weyn oo ka dhalatay dad shacab oo ku sugan deegaanka Ceel Hareeri oo dagaal maalmihii ugu dambeysayba ay ka socdeen halkaasi oo ay ku kordhaanteeyeen meydad aad u tiro badan oo kooxda al-shabaab looga dilay iyo sidoo kale ciidamada macawisleyda oo ayagana qayb ka ahaa dhaantadii iyo waliba ciyaartii qoobka ciyaarkayd ee halkaasi ay shacabka ku soo bandhigeen mas'uuliyiin xabsiga loo taxaabay oo arintaasi si weyn uga falceliyay xildhibaano ayaa si weyn uga hor imaaday isla markaana dhaleeceeyay kuna tilmaamay ciidamada dawladda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba mas'uuliyiinta halkaasi ku sugnaa in ay sameeyaan wax diin ka baxa waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa meydadkii ugu badnaa oo laga helay kooxda al-shabaab goob ay ku diyaarinayeen qaraxyo waaweyn oo ay doonayeen inay ku weerareen saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana meydadkaasi kamid ahaa gudoomiyaha kooxda al-shabaab u xil saarnaa gobolada Galmudug iyo isla markaana ahaa shakhsigii ugu sharta badnaa ee dhibaatada xooggan u geystay shacabka Soomaaliyeed qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan waxaana stuuriyaha igula sugan saaxiibka wacane oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya waxaanu soo dhow aad iyo aad ba mahadsantahay aynu ku bilownay qarax xooggan ayaa hadda ka dhacay mid kamid ah xeryaha lagu tababaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana lagu dawaangeliyo ku yaala magaalada Muqdisho bal qarax halkee ka dhacay khasaare intee dhan ayuu geystay Santiago aad iyo aad baad mahadsantahay qarax xoogan ayaa ka dhacay xerada nacnac oo markaasi ku taalo gudaha magaalada Muqdisho isla markaana ah goob markaasi ciidamada lagu diiwaangeliyo isla markaana lagu tababaro dabcan tababarka asaasiga hore ayay ku qaataan halkaasi ciidamada waxaana isa soo taraya khasaare xoogan oo halkaasi ka dhashay faahfaahimo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxa uu geystay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa isla markaana la beegsaday goobta hore ee afaafka ee laga galo xeradaasi halkaasi oo ay ku sugayeen ama ay ku sugnaayeen dhalinyaro aad u tiro badan oo markaasi rabtay inay isku diiwaangeliyaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halka warar kale ay sheegayaan in qofka naftii haligaha uu galay gudaha xerada isla markaana uu hal mar isku qarxiyay koox dhalinyaro oo halkaasi ku sugnaa isla markaana leen ugu jiray sidii markaasi lagu qori lahaa ama lagu diiwaangelin lahaa oo ama ay qayb uga noqon lahaayeen ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inta la xaqiijiyay Santiago waxaa dhintay 10 qof oo markaasi kamid ahaa dhalinyaradii leenka ku jirtay ee rabtay inay kamid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhaawacyadu waa trapel waxaana la soo warinayaa in ambalaaska ama adeega amin ambalaas oo haatan si toos u daadguraynayo dadkii dhaawacyada iyo waliba dhibaatadu ay ka soo gaadhay halkaasi dhanka kale waxa halkaasi ku soo ayagana ku sugnaa ciidamo ayagu soo dhamaystay tababarkoodii isla markaana gabi ahaanba haatan u diyaarsanaa in ay ka qayb noqdaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed khasaaraha ma cad rasmiga laakiin inta haatan la xaqiijiyay waa 10 kamid ah dhalinyarada markaasi leenka ugu jirtay inay ka mid noqdaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhinaca kale waxa ayadana la soo warinayaa in guud ahaan magaalada Muqdisho iyo waliba isbitaalka Digfaar iyo waliba isbitaalka Turkiga uu leeyahay ee ku yaal gudaha magaalada Muqdisho ayadana la sheegay in ay ku wajahan yihiin weeraro xoogan waxaana halkaasi lagu daadiyay ciidamada sida gaarka u tababaran Haram Cad oo markaasi uu soo tababaray dalka Turkiga waxa dhanka kale Santiago la sheegaya in qaraxyo waaweyn oo kale ay ku jiraan magaalada Muqdisho shalayto waxaan ogeyn Sheekh Cali Dheere waa afayeenka ururka argagixisada oo shalayto khudbadii Jumcada ka jeediyay mid kamid ah masaajida ay sida xoogga gacanta ugu haystaan ururku waxa uu sheegay in ay qaadi doonaan weeraro argoosi ah maadaama shalayto aan ogeyn wixii ka dhacay deegaanka Ceel Hareeri oo ay ku dhinteen in ka badan 450 ka tirsan dagaalyahanada ururka argagixisada al-shabaab halka meydad aad u tiro badan oo kooxdaasi ka tirsan laga helay guud ahaan goobihii shalay lagu dagaalamayay diyaaradaha droniska markaasi laga leeyahay dalka Turkiga iyo Mareykanka ayaana qayb ka ahaa weerarada iyo waliba qaraxyada lala beegsanayo kooxaha nafla caariga waaga dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay xusuustaan falkii argagixisada ay ku qaaday iska soobe ee maalmo kor ka dhacay magaalada Muqdisho dhimashadii intaad aragtay dhanayd ayaa halkaasi ka dhacday barihii ay soo mareen bar control ciidamadu ay ilaalinayaan ayay ahayd sidee ugu suura gashay iyagoo dhacdadii aan la ilaawin oo muddo badan aan ka soo wareegin in xero ciidan lagu tababaro nafta halige isku xidhay waxyaabaha qarxa intuu galo inuu ciidamada isku qarxiyo dabcan dawladdu wali kama aysan hadlin arintan ama dhacdadan hadda ka dhacday xerada ciidanka lagu tababariyay
generaal nacna ee markaasi ku taala bartamaha magaalada muqdisho halkaasi oo ku sugnaayeen boqolaal ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka Soomaaliya dhacdadii waan ogeyn qaraxii Soobe iyo waliba ciidanka gulufka coladeed ay qaadeen iyo waliba argoosiga ay sameeyeen ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sida nafurnimada ah ee markaasi ay deegaanada aadka u badan ay kamid tahay deegaanka Ceel Hareeri iyo waliba deegaanka Tordo oo iyada laftirkeeda maanta lagu xoreeyay kooxaha nafla caariga si kastoo ay haataba dabcan waxaan ognahay Santiago in goobta ammaankeedu uu adkaa laakiin lama garanayo waxaa jira dabcan waxaan ognahay inay jiraan kala daadsanaan iyo habacsanaan amni oo ku imaatay laamaha amniga iyo waliba kala shaki mas'uuliyiinta ugu sarreeya laamaha ammaanka iyadoo taasi ay jirto dabcan goobtu waxay ahayd goob markaasi ay leen ugu jireen ama safaf dheer ugu jireen dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida mutadawacnimada ah u galiyay ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sifa ay cadawan nagar qabayaasha ee dhibaateynaya shacbiga Soomaaliyeed ay iskaga dulqaadaan laakiin ma cada dabcan sida ay ugu suurta gasheen qofkan naftii haligaha waxa ugu dambeyn ay noqon doontaa in ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay arintaasi baaritaan ku sameeyaan isla markaana ay la wadaagaan warbaahinta madax bannaan sifa markaasi loo gaarsiiyo shacbiga Soomaaliyeed dhanka kale isbitaalka weyn ee dhaawacyada Soomaaliyeed ee dadkii waxyeeladu ay ka soo gaareen qaraxyadii arxawan la yaawayaashu ay la beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Digfeer waxaa la sheegay xaalad degdeg ah in la geliyay shaqaalaha kombiyuutaradooda inaysan la soo bixi karin ciidamo in la hareerayay shakhsi inuusan ka soo bixi karin gudihiisa haddii ay ka soo baxaanna shakhsigu isagoo oon waxba wadanin uu soo bixi doono oo kombiyuutarada xataa maaragtay aysan banaanka la imaan karin bal xaaladan degdega ee isbitaalka la geliyay maxay tahay Santiago xaaladan degdega ah waa midii aan horeyba ka soo sheekeeyay waxaa jirto in isbitaalkani ay kooxuhu sheegeen in ay ku soo wajaheen isla markaana ay qarxiyo la beegsan doonaan maadaama aan ognahay in wadanka Turkiga oo asagu hiil walaal muujiye markii laga reebo yani marka la eego dhinac kasta haday noqoto dhanka caafimaadka adeega degdega oo ognahay qaraxii ka dhacay Soobe in dadka ugu badnaa uu Turkigu qaado dibadda uu qaaday in ilaa iyo xilligan isbitaalkooda Digfeer ay ku jiraan boqolaal Soomaaliyeed oo dhaawacyadii qaraxii Soobe iyo waliba qaraxyadii isdaba joogaha ee kii lagu weeraray xataa Cali Yar Cali ay ku jiraan kii Beledweyne ka dhacay kii Jallaqsi ka dhacay kii Maaldhaweyta ka dhacay magaalada Kismaayo dhammaan ba qaraxyadaasi dad ku soo dhaawacmay ay ku jiraan isbitaalkaasi laguna tacaalay si bilaash ah aan ognahay in goobaha dagaaladu ay ka socdaan ay kor socdaan diyaaradaha qowmaatiga u kacay waliba sidoo kale kuwa droneska oo dagaaladii ay qayb weyn ka qaadanayaan in markaasi ay al-shabaab garwaacsadeen ama ay garwaacsadeen ba in markaasi ay yihiin waxa kalita ay ciidamada soo tababarayo garab siinayo ee markaasi caafimaadkoodii iyo gurmadkoodii dhaqaalahoodaba garab taagan inuu yahay Turkiga isbitaalkooda ayayna rabeen inay bartilmaameedsadaan markii xogo sirdoon la helay in al-shabaab halkaasi qarax ay ku soo wajahayeen waxaa la soo daadiyay ciidamada sida gaarka u tababaran Haramcad waxaan la arkayaa goob kasta inay tageen ciidamada ayna baarayaan qof kasta oo markaasi galaya meesha ama ka soo baxayo si loo xaqiijiyo amniga isbitaalkaasi oo muhiim u ah dabcan wadanka Soomaaliya iyo guud ahaanba magaalada Muqdisho wahagaag dhanka kale carab weyn ayaa ka dhalatay baa la yiri dad ku kordhaanteeyay meydadkii ururka al-shabaab ee faraha badnaa ee looga laayay deegaanka Ceel Hareeri bal mas'uuliyiinta ka falcelisay iyo dhaantada sababta loo diiday in meydadka korkooda lagu marshaxado oo dadku ay ku soo bandhigaan farxadooda maadaama dhagar qabayaashii halkaasi lagu dilay maxay Santiago horta laba xaalad loo kala qaadaya xaaladan waxa ka hadlay mas'uuliyiin fara badan oo ay isku jiraan xildhibaano iyo waliba sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo arintan ay isagu si qaas u quseysay iyo dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya meyd in lagu kordhaanteeyo wax faa'iido oo ku jirto gabihaanba haday noqoto dhaqan Soomaaliyeed iyo mid Islaamba gabihaanba ma jirto wixii al-shabaab in la laayo wala isku raacsan yahay culimo iyo caamaba dhamaanba ummadda Soomaaliyeed macala ciyaalka yarka in al-shabaab la soo laayo wala isku raacsan yahay laakiin meydku wuxuu leeyahay xurmo uu naga mudan yahay qof meyda oo dishay inaad iska asturto ayaa waajib kugu ah laakiin inaad ku dul ciyaarto oo markaasi aad jiibti iyo jaanta halkaas la iskula helo meydka lagu dul dhaanteeyo wax faa'iido oo markaasi ugu jiro ummadda Soomaaliyeed ma jirto marka laga reebo inay rabaan inay ku waansamaan kuwa kale ee shabaabka ee meesha ku jiro ta kale Santiago meesha mucjisada ka dhacday meesha horta waxa ka dhacday mucjiso la yaab leh ee deegaanka Ceel Hareeri waxa la soo qaaday dhalinyaro isku xiran 10 iyo ilaa 20 oo dhalinyaradii markaasi ay al-shabaab sida khasabka ay ku soo galiyeen dagaalka xilligii nabiga kaleey salaatu salaam markii asxaabtu ay dagaalamaysay asxaabta qaar ka dambe ay god la gali jireen si faysa uga bixin ilaa iyo qofka deena yaani inuu dhinto iyo inuu markaasi guul u gaaro ayay ahayd marka al-shabaabna tii sidii nabiga kaleey salaatu salaam iyo asxaabtiisa ayay rabeen inay sameeyaan dhalinyarada marka lagu ka xireen nin markaasi asaga la soo khasbay oo aliis Allah ah oo rabin inuu dagaal galo inuu dhinto lagu hay ka wada xirxireen
baashi ninkii markaasi amiirkooda ahana gadaal buu ka istaagay marka wuxuu dhahay qofkii soo baxo ama meeshaasi ka soo baxo xabad baan dharar kaga dhufanaya marka dhalinyarada markay arkeen marka inay ciidamadii ay waxooda diyaar yihiin oo ay soo galeen goobtii sidoo kalena diyaaradihii kor wareegayaan meel u baxsadaan mala luway ka wada xidhan yihiin asaga ayaa dhabar ka toogtay ayagiiba isku xidhan ayagiiba isku xirtoon toban ba isku xidhay marka ayagii waxaad arkaysaa marka 10 qof oo hal meel lagu dilay oo qarax lagu tuuray 10 meel oo dhabarka ka wada toogan oo ilaa iyo markaasi maxaa la jiray qaar ka dambe rasaastii eber ay ka noqotay marka waxaad arkaysaa in mucjisada meesha ka dhacday iyo halaaga meesha ka dhacday waxa 450 hal meel ku dilay waad dareemi kartaa inaysan ahayn macnaha waxa weeye waa god walba 10 qof baa isku xidhnaa marka 10 qof ma dhaqaaqi karaan mid carari karana ma jirto marka waxaa la sameyn marka mid kor wareegi baa jira ama dhowr qof oo ayaga kamid ah dhabarkay ka tooganayaan dhabarka ka tooganaya haddii markaas ay dareemaan inaysan xabad ridaynin inaysan damcaan inay baxsadaan dhabarka laga tooganaya marka mucjisooyinka meesha ka dhacday waxay halkaa ku tusaysaa in al-shabaab aysan u dagaalamaynin diin waxay u dagaalamayaan ay tahay damac kaleeto siyaasadeed oo guracan oo markaasi aaban ummadda soomaaliyeed waxdana aan ugu jirin taasina waxay ummadda soomaaliyeed dabcan u noqonaysaa qeyl cad iyo weliba sidoo kaleeto yani waxay ka arkaan oo al-shabaab lagu raacaba inaysan jirin ayay arkayaan dowladdu waxay sidoo kale waxaan u soo bandhigtay godadkii ururka ay ku jireen in xashiish iyo weliba laga helay waxa loo yaqaano maandooriye noocyo badan iskugu jira xarakadana waxay sheegayaan inay wadaada yihiin sidee la isku lahaysiin karaa warka wada dowladda iyo nimankan waxa iyagu ay sheeganayaan ee ah inay culimo yihiin mid ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ee aad u falanqeeya siyaasadda ka jirta dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in al-shabaab 3 qaybood isku qaybiyeen dhinaca wuxuu yiri gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba sidoo kale Shabeellooyinka waxa loo soo diray intii condom-ka iyo weliba sidoo kale waxyaabaha sexualka aad ugu qaabilsan urka al-shabaab ayaa loo soo diray dhinaca gobolka Hiiraan waxa loo diray raggii markaasi ragga ahaa ee ayuu balwad lahayn xag naageed iyo xag waxaad waxa dhanba ayaa loo diray dhinaca wuxuu dhahay Galmudug iyo gobolada mudugna waxa loo diray kuwa xashiishka cabayay iyo sigaarka iyo tubaakada ayaa loo diray marka isku soo duduub xaaladda markaad fiiriso al-shabaab way iskala qaybiyeen waxayna haatan u diyaar garoobeen in gebi ahaanba ay marayaan meeshii ay ugu dambeysay ee ku soo dhammaan lahayn ama gabagabadoodii ayay marayaan waagaag dhinaca kaleeto mas-uulkii ugu sarreeyay gobolada Galmudug ayaa la sheegay iyagoo qaraxyo maleegaya oo gawaari ku reekabay inuu ayagii la kacay gudoomiyihii halkaasi ku dhintay baa la yidhi mas-uuliin kale ayaa halkaasi ku dhimatay dowladduna waxay xaqiijisay geerida ninkaasi dad aad u tiro badan ayaana halkaasi ku dhintay baa la yidhi ma qarax lasoo tuuray oo dhinaca dowladda federaalka iyo diyaaradahan duuriyaha lahayn u geystay bay ku dhammaadeen mise sida dowladdu ay u sheegtay baa runa oo waxa weeye qaraxan waxaa loo maleegayey in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed lagu waxyeelay dabcan Santiago arintan waa siday dowladdu u sheegtay nimankani markay rabaan ama markay meel la soo gal rabo weer uu ku soo wajahan yahay waxay diyaariyaan qaraxyo waaweyn kuwa dhulku xabaalaan kuwa baabuurta ku xidhaan kuwa meelo kale ku xidhaan kuwa ayagu isku xidhaan markaasi wax wajiyo oo leeyihiin dhimasho iyo nolol toona ma jirto nin la dhahay haddaad dhimato istishana jannaad galaysaa haddii aad noolaatana jannaa kuu ballan qaadnay oo waan ku siinayba dabcan waxaad moodaa in ayaga amiiradoodu ay bixiyaan jannada oo sida lacagta ay u bixiyaan ay ugu hayaan marka nimankani waxay sameynayaan qaraxyo waxay dhanka kale ta diyaariyaan baabuur qaraxyo ka buuxo rabeen inay ku weeraraan saldhigyada iyo goobaha markaas ciidanku ay ku sugan yihiin ugu dambeynna ayagii ayuu shartoodii dib ugu laabatay halka ayuuna ku dhintay gudoomiyihii dhannaa ama amiirkii dhannaa ugu sareeyay gobolada mudug marka waxay ku tusaysaa in markaasi ururku laftirkiisa uu haatan kala yaac iyo jajab iyo weliba hesiteed intuu ku dhacay ay haatan marayaan meesha ugu dambeysay ee sheega magacooda iyo weliba muuqooda ugu dambeyn Somaliland sanado badan waxaa lagu eedeynayay in ay taageeraan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya maanta warkii ugu horeysay ayay ka jawaabeen oo ay ku tilmaameen inaysan xiriir la lahayn xarakada al-shabaab sidee lagu aamini karaa in xarakada al-shabaab Somaliland aysan iyadu xiriir la lahayn halka mas'uuliintii ugu sareysay iyo culimadii Somaliland ka soo jeeday ay madaxda ugu sareeyay shabaab ay ka yihiin Santiago aad arintani horta muran badan ayay ka dhalisay gudaha wadanka Soomaaliya guud ahaanba Soomaalida goobaha ay degto haday noqoto dhinac kastaba ama dal iyo dibadba arintani waxaa su'aal badan laga keenay amiirka ugu sareeyay ururka al-shabaab tan iyo xilligii la aasaasay wuxuu ahaa nin ka soo jeedo gobolada waqooyi ilaa haatanna nin ayaga ah u baahaysto hatta ku xigeenku waa ayaga ma noqdo cid kale to gobolada koonfureed dadka joogo waxay u dhamaadaan markaasi jagooyin kale tii waxa u balasiya moogi amiir iyo ku xigeentoona
gebi ahaanba ma helaan. markii taa laga eego waxaa iyadna soo baxaysay warbixino sheegaya in markaasi ay jiraan dekedaha dalka aan dheh maamulka Somaliland lacagaha ka soo baxo in inta badan la siiyo kooxaha al-shabaab. ayadoo taasi ay jirto oo arintaasi haddana ay jirto dowladda federaalka Soomaaliya marar badan tan iyo inta kacdoonka ka hortay gudaha wadanka Soomaaliya waxay Somaliland ka codsanaysay in ay taageerto kacdoonka ka dhanka ururka al-shabaab. laakiin taa bedelkeeda waxay weerar kala duwan ay ku qaaday maamulka Puntland iyo waliba sidoo kale maamulada dalka halka ay sidoo kale tan ay soo masaafurisay dad aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo waxba garabsanin wadanka maamulka Somaliland gudihiisa ku dhashay sidoo kale ta ku guursay reer ku lahaa hanti u taalay hantidoodii waa la xalaashaday ayagina waa la soo dhibood garay waxaan ogeyn in la keenay maamulka Puntland taasi oo ay ka xinaaqeen ama ka caroodeen maamulada kale ee dadkaasi ay ka soo jeedeen. dhanka kale waxaa jirtay in maamulada dalka sida maamulka Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo waliba Puntland ay ku eedeynayeen maamulka Somaliland in ayba ayagu shabaabka taageeraan fangareeyaan isla markaana ay yihiin asaasayaasha iyo waliba sidoo kale dadka ka dambeeya. marka arrimahaasi oo dhan isku soo duudubto haatan maxaa la gudboon wadanka Soomaaliya waxaa la gudboon in arrintan qadiyadan markaasi Somaliland ay gees ay u taagan tahay iyo sidoo kale arrimahan yani ismaa diidan ee ka jira gudaha wadanka Soomaaliya in horta يعني Somaliland laga dhaadhiciyo in ay dad ay taageerto markaasi aan dhahay urka al-shabaab inay taageerto oo maalin walba dad walaaladooda ay xasuuqaan inaysan dan ugu jirin arrintan Somaliland laga dhaadhiciyo oo markaasi wadanka Soomaaliya midnimadiisa la raadiyo. si kastaba ha noqotee sanado badan oo kooxahan argagixisada ay ka jireen gudaha dalka Soomaaliya waxaa Somaliland si gaar ah farta loogu fiiqayay inay iyadu fangarayso lacag badan ay ku bixiso sidii koonfurta Soomaaliya loo burburin lahaa kooxahana ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. shakhsiga ugu sareeyay kooxdani ee asaasayaasha ka midka ahaa ee hogaankii ugu horeeyay ee xarakada al-shabaab loo doortay ayaa lagu magacaabi jiray Godane kaasi oo ka soo jeeda magaalada Hargeysa isla markaana la sheegay in reerkiisa iyo caruurtiisaba ay u degan yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland. waxaana eedani soo jirtay sanadihii ugu dambeysayba dowladda federaalka mas'uuliyiin sare aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa si toos ah ugu dhaliilay Somaliland inay canshuuraha ay ka soo aruuriyaan gudaha Somaliland iyo waliba dekedahoodaba lagu faangareeyo kooxahan argagixisada. waana markii ugu horeysay Somaliland ay ka jawaabto eedeymaha loo soo jeedinayay ee ah in kooxdan shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya xiriir fiican ay la leedahay isla markaana iyadu ay faangareyso dhaqaalaha ugu badanna ay ku bixiso sidii koonfurta loo burburin lahaa ayna u degi lahayn. si kastaba ha noqotee eedani ay ka jawaabtay Somaliland iyo waliba ismaandhaafkan iyo dowladda federaalka mas'uuliyiinta iyo eedeymaha loo jeedinayo Somaliland ayaan lagaga qancaynin maanta jawaabta ay ka bixiyeen maamulka Somaliland ee ah inay iyagu bari ka yihiin inay taageeraan xarakada al-shabaab. wixii ka soo kordhana daawadayaal wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idinka tegaynaa amaana Allah.